kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah dawladda Mareykanka oo mar kale taageero culus u fidisay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib wada hadal dhex maray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo ammaan kala dul dhacay madaxweynaha cusub. xog lama filaan ah oo laga helay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilal aan horey loo arag isla markaana culus u magacaabayo xubnihii ay mucaaradka isla ahaayeen. haddaba maxaad kala socotaa xilalka la yaabka leh ee loo magacaabayo madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre? wararka kale waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay magacaabida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si weyn loo sugayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wada la tashiyadii ugu dambeeyay iyo magacyo lama filaan ah oo lagu arkay xafiiska madaxweynaha. maxaa ka jira in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo magacaabayo shakhsi isku reer yihiin madaxweyne hore Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo talaabooyinka qaar ee muddo kororsiga kaga daysanaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo digniin adag oo loo diray Muuse Biixi. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana khamiis 26 bisha shanaad ee May sanada 2022. barnaamijkan si shargareeya oo u sii gudbiya saaxiibadiina kale ee kugu jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkeena. dawladda Mareykanka ayaa mar kale taageero culus waxa ay u fidisay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helaya markaasi fariimo iyo sidoo kale bogaadino kaga imaanaya dawladaha caalamka. Mareykanka ayaa mar kale soo hadlay markaan waxa ay isla wada hadleen madaxweynaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa ay markaasi wada hadal ku yeesheen dhinaca telefoonka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xogayaha arrimaha markaasi dibadda ee Mareykanka Blinken waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyadoo madaxweynuhu uu dawladda Mareykanka uga mahad celiyay taageerada ay u fidiso dadka iyo dawladda Soomaaliyeed. oo qoraal ay Villa Soomaaliya ka soo saartay wada hadalkaas ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khadka telefoonka wada hadal kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka mudane Antony Blinken iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal. madaxweynaha ayaa dawladda Mareykanka uga mahad celiyay taageerada ay u fidiso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Mareykanku waxa uu safka hore uga jira dawladaha sida weyn u garab istaagay dhismaha dawladnimada Soomaaliya waxaana aad markaasi u wanaagsan kalsoonida uu iskaashigoodu markaasi qabo amaba iskaashigoodu ku qabo madaxweyne Xasan markaasi Sheekh Maxamuud. Mareykanka ayaa waxa markaasi ay tahay markii labaad hambaliyo iyo bogaadin markaasi uu soo dirayo iyo taageero madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. dhinaca kale safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ammaan weyn kala dul dhacay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud ay ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Larry Andre oo dhowr jeer la kulmay madaxweyne Xasan ayaa waxa kale oo uu tilmaamay inuu yahay hogaamiye qaran oo leh aragti isla markaana yaqaan sida wax loo hogaamiyo. waxaa sharaf ii ahayd in aan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ahaa murashaxa oo waxa wada sheekaysi wanaagsan ku yeelanay safaaradda. waxa uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo isaga oo matalaya shacabka Soomaaliyeed. muhiimad ayuu siinayay in wadar ogol wax ku maamulo ayuu yiri safiirka Mareykanka. sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay qorshe ugu jirto in xiriir wanaagsan oo guuleysto uu la yeesho dawlad goboleedyada si ay horumar wanaagsan markaasi uga sameeyaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha, wax ka qabashada abaaraha iyo socodsiinta howlihii uu markaasi ka tagay madaxweynihii hore. waxa kale oo uu sheegay in markaasi mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee madaxweynuhu uu mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay abaaraha. safiirka Mareykanka Larry ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in Mareykanku uu taageeradiisa la garab taagan yahay dawladda Xasan Sheekh isla markaana ay si dhow ula socon doonaan dhismaha markaasi dawladnimada Soomaaliya. waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. markaana aynu eegno xogo laga helay xilal loo magacaabayo xubnihii mucaaradka isla ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xogtan aynu helnay ayaa waxay tilmaamaysaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xil sare u magacaabi doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed
iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre. ila wareediyo ku dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inoo xaqiijiyey in sheekh shariif loo magacaabi doono wakiilka gaarka ah ee dib u heshiisiinta qaran iyo wadahadalada Somalilan. arrimaha ugu weyn ee loo magacaabayo shariifka ayaa qayb ka ah in uu dowladda federaalka wakiil uga noqdo wadahadalada Somalilan oo dowladda cusub madaxweynaheedu qorsheysan yahay amaba uu qorsheynayo in markaasi la soo celiyo wadahadalkii. waxaa sidoo kale qayb ka hagaajinta xiriirka ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo 5 sano la soo dhaafay aad markaasi u liitay, iyadoo xasan sheekh uu doonayo in uu xiriirkooda hagaajiyo lana yeesho markaasi macaamil wanaagsan. xasan sheekh oo markii uu isniintii xafiiska la wareegay bilaabay magacaabis iyo in uu bedelo agaasinkii villa Soomaaliya ayaa waxa uu horay ugu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gurmadka ee markaasi abaaraha. dhinaca kale, wararka la helayo ayaa sheegaya in xasan cali kheyre loo magacaabayo la taliyo sare oo dhinaca deyn cafinta Soomaaliya markaasi u qaabilsanaan doona amaba xafiiska madaxweynaha. xasan cali kheyre ayaa wuxuu ka mid ahaa xubnihii markaas u tartamay doorashada Soomaaliya, waliba meel fiican ka soo gaaray. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqday inuu soo dhaweynayo siyaasiyiinta ololaha doorashada kula jiray ee sida weyn u mucaaradsanaa maamulkii madaxweyne Farmaajo. sidoo kale waxa uu muuqdaa in uu isbedel ku samayn doono siyaasadihii jiray oo uu ku soo maamulayay dalka sanadihii 2012 ilaa iyo 17. xasan sheekh ayaa hal markaasi ku dhigiisa ololaha doorashada ka dhigtay Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaana hadda muuqata in uu taas markaasi wado in uu ka dhabeeyo. markaana haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha magacaabidda ee ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmo ka hor la wareegay xilka ayaa bilaabay wada tashiyo la xiriira shaqsiga loo magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha dalka. sida dastuurka ku meel gaarka uu qabo, madaxweynaha ayaa haysta muddo 30 cisho oo uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub oo uu dalku ku yeesho, taas oo ka bilaabanaysa maalinta uu xilka la wareego. sida ay sheegayaan la wareediyo ku dhow villa Soomaaliya oo markaasi nala hadlay, madaxweyne xasan sheekh ayaa raadinaya siyaasi qoyar socod ah oo la jaan qaadi kara siyaasadaha xasiloon ee uu doonayo in uu dalka kaga gudbiyo dhibaatooyinka jira. waxaa jira siyaasiyiin badan oo CV-gooda u gudbiyey madaxweynaha, kuwaas oo danaynaya in xilkan loo magacaabo. hase ahaatee, siyaasiyiinta ilaa hadda la hadal hayo kuwooda ugu cadcad waxaa ka mid ah Cali Daahir Ciid oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka ee Galmudug. Cali Ciid waa siyaasi qoyar socod ah, aqoon-yahan ah ee afgaaban ee ka shaqayn kara nabadda iyo dib u heshiisiinta siyaasadeed miyir qabtana waa siyaasad miyir qabtana ku hogaamin kara xukuumadda cusub. waana sifooyin uu xasan sheekh ku salaynayo shaqsiga uu doonayo inuu u xusho ra-iisul wasaaraha cusub sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya. waxaa kaloo jira shakhsiyaad kale oo madaxweynuhu eegayo taariikh nololeedkooda iyo sida ay xilkan uga soo bixi karaan ama uga soo dhalaali karaan, waxaana maalmaha iyo toddobaadyada soo socda kala cadaan doona halka uu ku furan doono geediga madaxweynuhu ku baadigoobayo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, iyada oo la qorsheynayo in markaasi ay dhacdo xafladda caleemasaarka. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa lagu eedeeyey inuu doonayo muddo kororsi uu xafiiska kusii joogo kadib November 2022 oo ay ku egtahay muddo xileedkiisii 5 sano ahayd. waxaa Muuse Biixi si weyn markaasi loogu ammaanay doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland oo dhacday June 2021, laakiin guuldaradii xisbiga kulmiye ka soo gaartay ayaa hadda waxay u muuqataa inuu qaatay dariiq la mid ah kii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isku dayay inuu muddo kororsi 2 sano markaasi samaysto. waxaa xalay natiijo la'aan amaba saacadii la soo dhaafay natiijo la'aan ku soo dhamaaday wadahadallo u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, iyada oo khilaaf weyn ka taagan yahay doorashada madaxtinimada iyo furista xisbiyada ee isdhex galay. Muuse Biixi oo mucaaradka ka soo horjeeda ay fahamsan yihiin in uu arinta furista xisbiyada uga dan leeyahay xukun dheeraysi ee aysan ka ahayn daacad, ayaa hadda ku adkaysanaya qorshihiisii oo xilligan Somaliland ka abuuray xaalad kacsan iyo kacdoon qaabeeleed markaasi siyaasad lagu laray ah.
madaxda mucaaradka Somaliland oo ay hogaaminayaan Wadani iyo Ucid ayaa bilaabay in ay u hanjabaan Muuse Biixi sidii midowgii murashaxiinta Muqdisho iyaga oo waliba ku goodinaya gacan ka hadal iyo in uusan maalin qura ku darsan karin Muuse Biixi. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geli.